Waan ku salaamay daawada ku soo dhow muuqaalkeena maanta oon kaga hadli doono waxaa loo maleeyay calaamadaha qiyaamaha oo ka soo ifbaxay waddanada Ciraaq iyo Sacuudiga. Daawada sidaan wada ogsoonahay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu sheegay inaan qiyaamaha ama saacada qiyaamuhana dhici doonin ilaa uu guro webiga Furaad. Sidoo kale dhulka Carabtu ama dhulka Saxaraha ee Carabtu uu noqdo ama dhulka Saxaraha ee Carabtu uu ku soo noqdo sidii uu ahaan jiray berigii hore, taasi oo ahayd in dhulka Saxaraha uu leeyahay webiyo iyo beero waaweyn. Haddaba labadii bilood ee u dambeeyay waxaa soo shacbaxay in webiga Furaad oo mara waddanka Ciraaq uu gebi ahaanba uu guray, taasi oo ka mid ah calaamadaha uu Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu sheegay inuu guri doono webiga Furaad isla markaana ay kasoo hoos bixi doonto buur dahab ah, taasina la isku layn doono. Abaa Hurayra ayaa Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee inoogu soo wariyay xadiis u dhignaa inaan saacada qiyaamuhu dhici doonin ilaa webiga Furaad uu guro isla markaana uu kasoo baxdo buur dahab ah. Buurtaasi oo ay isku layn doonaan dadku ayna soo doonan doonaan dahabka, balse dadka soo doontay 99% ka mid waa la dili doonaa oo iyaga isdili doona. Sidoo kale daawada waxaa jira calaamadaha qiyaamaha uu Nabi ka horeeyay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waxaa ka mid ah in dhulka Carabta ee Saxaraha ahi ay isku bedeli doonaan webiyaal iyo beerooyin waaweyn oo bustaan ah. taasina waxa ay soo ifbaxday bilihii u dambeeyay in bartamaha Sacuudiga meel Saxaraha ay kasoo baxeen biyo, isla markaasi biyahaasi ay goosteen dhul badan oo ay ka dhigeen dhul webiyaas, isla markaasi biyahaasi ay sameeyeen dariiq sida webiga oo kale ah. biyahaasi ma kala joogsanin, isla markaa way socdaan. Haddaba 10 calaamadood ee maalinta qiyaamaha ayaa waxa aan ka dhageysan doonaa Sheekh Xuseen Cali Jabuuti. daawasho wanaagsan. saacada qiyaamada soo socota goor bay dhici doontaa. saacada qiyaamadu ma dhacaysa buu Nabigu yidhi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu Nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam. 10 calaamadood waa calaamaatul kubra ayaa la yidhaahdaa, laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqra iyo kuwa la arkay maanta. haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqra. laakiin Nabigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacada qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu Nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam. فذكر الدخان والدجال ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج ياجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك النار تخرج من قعر عظم تحشر الناس إلى محشرهم بالنبي يري عليه الصلاة والسلام. وعو رسول كأنه يري ساعة قيامته ما دعي دونتو إلى الله أركض 10 علامات مركب النبي شاقي قيق سمد كيمن يبو النبي شاقي كما في نص القرآن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وعو النبي شاقي قيق سمد كيمن يبو النبي شاقي وعاكلوا النبي شاقي دجال بو نبي شيغ عليه الصلاة والسلام. وأدوية بقعد كما تشالو إلا دجال أمريا دادكنا وحو كدادعنيا إنو يهي ربكي إساقو دادك أبور إنو يهي بو كدادعنيا. وشر غائب ينتظر أي نبي فالدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. دجال بو نبي وشيغين ويمنا يا آخر الزمان. أنت الزمن كان ما أنت كورما صحابة رسولك رضوان الله عليهم أجمعين أحاديث الدجال كصاب سنمرقو نبي وقور رمايو وحي دادن وحن موذي جرني سدا وهذا النبي قلوب تهد أساميني درتنا قدام بيسينو الدجال كجرانو ملينين أصحابته دادن وأكوني أفر بغلو سنة كهر ويان وحس ونبي كور رمايو إنك أنا ما أنت الزمن كان كور رما جنة النار وحويك بوتا. وعو نبي قوليه عليه الصلاة والسلام قفل يقفك السقر الرمية الراعنا وحا جنة وتا أيو كتوريا ضد علي ددك السقر إنكري هذا الرب متهيدي كافر دجال آيات هينا نارتو كتوريا برقابو نبي قوليه عليه الصلاة والسلام. طبعا كآيات سورة الكهف نكا آخر استمالنتي إلى هاي في الندى دجال وكبت بادي أبو رسولكم. وفي رواية توكد ضمن النبي قواشي
وعاكلوا نبيين الشيخ عليه الصلاة والسلام دجال إنه أدونكم أنه صامين وقليا مكية مدينة مقليا برسولكم. وفي رواية حديث وعي شيخ سأفر ملوت دجال مقليا جبل الطور قرت نبي موسى عليه السلام لوقو وحيودي إلهي نبي موسى وكل مناجود مقليا دجال مكة مقليا مدينة مقليا قدسنا مقليا برسولكم المسجد الأقصى دجال مقليا. لكن شريرين dadka sharka badan leh munaafiqiinta ee Makii Madiina dhexdeeda ku dhuumanaya ku nool ayaa dajaal banaanka ugu baxaya rasuulku. Calaamada saddexaad buu nabigu waa daabad dhulka ka soo baxaysa. Urta Safa leeyda inna Safa wal Marwa sakhrada bay ka soo baxaysa. Iyaduna adduunyada oo dhan bay maraysaa. Qof kasto adduunyada ku yaala bay nabigu waa ishaabadayn waxa qof walba uu yahayna waa ku qormi doontaa rasuulku. مؤمن كمؤمن بيكو شابدين كافر كنا كافر بيكو شابدين. وعاكلوا نبي شيء إنه إيمانا النبي عيسى عليه السلام ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. نبي عيسى عليه السلام أيا دشينا كسو دقدون أبو رسولكو يري حكما يسقو حاكما شريعة الإسلام قد يدكو حكومي دونا وعدالة فلدونا ظلمك ما أنت أقل والبا يا مجتمع والبا ساميي وكرفع دونا صليبك قالوا أيدادان نبي عيسى لقو حلول لقو دلدلين وجبين دونا عدالة الإسلام قد لقو حكومي دونا برسول وعاكلوا نبي يقول شيئا ياجوج وماجوج جن يكن الله فوري دونا برسولكم. والله بقى أمضوضو كو أبتر صدا يافث بن النوح بكو أبتر سنة أمدي بوافر بغلوكن mid iyaka kamida madhinta baa la yiri ilaa uu arko kun wiilo isagu uu dhalay oo qaan gaaro dagaalka galay mooyaane. ummadana adduunyada waa lagu soo furi doonaa hatta idha futihat yaajuuj wa maajuuj wa hum min kulli hadabin yansilun. waa ka quraanka ilaahay noogu sheegay. waxa kale nabigu sheegay ash-shamsu buu nabigu calaamada lixaad waxa kamida cadceeda oo ka soo noqota meesha ka dhacdo. لما مرحلة قفكو انت ينسو قارن هدو توبتك النبو نبي قولي توبت إلهي جل وعلا واكا أقبلا. لما مرحلة دوت نفتو مرقي كسو بحضو جيركو أوردن هلكا هنقوري قدوت اسكوكو تيمادو هدو يرادو قفكو مرقاسن إلهي وصو نقونيا توبت لغا أقبل مايو. نعم هدو إعدادو قلبات كسو نقوتنا البابك توبت واحد ميبو رسولكو صدح ميلودو أتبيدو كتفا الله نبو نبي قولي دولك يا بوي دون قصف في المشرق دولك إعداد أي كسو بحضو ودنا الدنيا ومدى دنبا لواي دونا. علامة تضباد واتاس علامة السديدات بالنبي يقول خصف في المغرب قلبيت كأدويدنا ودنا الدنيا ومدى دنبا دولك لقوي دونا. علامة السقالات بالنبي يقول خصف في جزيرة العرب جزيرة العرب نحن يدنا دولي ومدى دنبا لواي دونا. علامة التوبنات بالنبي يقول ولا ليال والنار كسو بحي سعادن مقالة عدن كنت هذيك صباحي دونتا بنك قيامته تكسو رين دونتا برسولكم. طبعا كعلى مضاد بكسو رين ونقول ساعة قيامته.